muuqaalkeena maanta waxaan uga hadlaynaa codsi uu inaga soo dalbaday mid ka mid ah daawadayaasha oo soo codsada in laga caawiyo sida uu isticmaali karo brandka company-giisa presentationada marka la jeedinayo colorka loogada inuu isticmaalo presentation-ka oo dhan taasoo ah feature-ka loo yaqaano slide master-ka ee uu leeyahay software-ka PPT-ga ama PowerPoint-ga ee shirkadda Microsoft. Maanta waxaan arkaynaa marka sida loo sameeyo ama sida loo adeegsado slide master-ka kaasoo ah feature-ka ka dhigaya in brandkaaga aad u isticmaashid dhammaan slideska aad ku jeedinaysid presentation-ka ha noqoto cashar ahaan inaad u jeedinayso ama inaad maaragtay xog ahaan u jeedinayso adigoo ka tixraacaya color brandka company-ga aad ka tirsan tahay ama goobtaas waxbarasho. Waxaan soo furaynaa PowerPoint-ga kadibna waxaan dooranaynaa meel bannaan macnaha blank presentation ayaan soo furanaynaa kadibna waxaan leenahay create kadibna waan iska delete garanaynaa kadibna waxaan taabanaynaa halka ay ku qoran tahay view waxaan ka dooranaynaa slide master waa halkan meesha laga maamulo presentation-kaaga nooca uu noqonayo. sidaad u jeedid hadeer midda labaad ayuu saaran yahay waxaad hubinaysaa inuu kuu saaran yahay midda koowaad ee kuu dooran tahay ayaad hubinaysaa waayo midda koowaad ayaa waxay tahay slide master-ka laga maamuli doono presentation-kaaga oo idil. halkan wixii aad ku samayso markaas nooc doona ha noqdo color ha noqdo wax kale ha noqdo dhammaan waxay saameyn doonaan qaybta ka dambeysa ee presentation-kaaga ee slide-yadiisa uu ka kooban yahay ayay saameyn doonaan. waan highlight garanaynaa haddana waa iska dhiliidaynaa waxa saaran loogadii aan isticmaal lahayn baan diyaarsanaynaa. hadda loogada waa diyaarsanay magac ayaan u bixinaynaa loogada meel walba marka si aan ugu qorno magac meel walba aad taabatid slide master-ka taa waxbaa ku qori kartaa marka loogada agteeda ayaan qoraal ku samaynaynaa magacaan soo qaadanaynaa iska malaawaalka ah kadib waxaan u save garaysanaynaa sawir ahaan si aan u isticmaalno loogadan waan iska delete garanaynaa hadda uma baahnin maadaama aan samaysanay insert ayaan taabanaynaa picture kadibna waxaan ka soo saaraynaa halkii uu noo yaalay oo ahaa desktop-ka soo gelinaynaa. hadda loogadeena waa tan sidaa u jeedaan halkan loogada meel walba way saaran tahay oo ka mid ah halkan slide master-ka hadda kow loogada waxay kasoo bixi doontaa presentation-kayga slide walba oo ka mid way kasoo bixi doontaa loogadaas. sidoo kale waxaan rabnaa inaan xoogaa kusii darno qurxin marka waxaan sameynaynaa copy baan ka qaadaynaa kadibna qayb ayaan ka jaraynaa iyadana isticmaalna waa weyneynaynaa tusaale ahaan kadibna capacity-ga ayaan ka yareynaynaa transparent ayaan ka dhigaynaa si waxa lagu dul qoro loo arki karo. sidaa marka aan samayno waxaan iska xiranaa master slide-kan iska xiranaa kadibna waxaan imaanaynaa halkan sida hadda aragna waxay noo samaysan slide-kii koowaad oo wata calaamadii company-ga iyo sidoo kale isla sawirkii oo la balaariyay macnaha background ahaan aan u isticmaalnay dhammaan waxa isticmaali doona oo kale marka waxay noqonayaan waxyaabo slide walba gaar u leeyahay laakiin kan koowaad intaasay ka siman yihiin. marka tusaale ahaan haddii aan dhahno new slide oo kale isla isagii oo kale soo galaya laakiin waxa kala duwan waxyaabaha ku yaala waa iska tirtiri kartaa xogtaada ayaa ku bedelan kartaa halkan. kan koowaad ayaan haysanaa marka ka koowaad ay haystid dhammaan waxaad awoodaa inaad kuwa kale ku soo darsanaysid marka new slide dhahdid ay siday noqdaan ama ay isku color noqdaan adigoo aan bedbedelin oo aan waxba ku sameyn. sidaa marka aad u diyaarsatid kadibna xogtaada ayaad gashanaysaa oo aad ku buuxsanaysaa dhammaan slide-yada kala duwan si aad aragtaan dhammaantood waa isku nooc. hadda waxaan diyaarsanay presentation-keeni sidaad u jeedaan waa presentation qurux badan dhammaanna waxaa background u ah calaamadii aan sameynay ee aan loogada kasoo jarnay colorkiisuna waa isku wada nooc. sidaas ayaan master slide-ka u isticmaalnay inagoo kaliya wax ka bedbedelnay xogta kore laakiin si base-ka ama dashboard-ka aan ku shaqeynaynahay uu yahay mid isku nooc ah
sidaas ayaan u sameynay presentationka quruxda badan ee isku wada nooca ah ee maaragtay calaamadii loogadii company-ga ee kalarkeedii kaliya ka kooban background-ka iyo waxyaabaha kale labadaba. marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad casharkan ka faa'iiday. waxaan ahay Salaaxudiin Soomaali, halkan waa Handab Academy.